qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda mid ka mid ah beelihii dhowaan colaadu ku dhex martay deegaanka ceelaf weyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku dhalinyarada beesha Saad Yunis nabadgelyada haddaan ka hadlo waxa weeye Saad Yunis in badan nabad buu taagnaa maantana wuu taagan yahay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay cid la qaadata ayuu leeyahay haddaan ku horeeyo qodobka miidiyaha dadka wareeriyay waxa weeye dagaalkii ka dhacay darar weyne wuxuu ahaa dagaal isku horimaad ah waxaana ku dhintay labadii cashay kala xigtay labada nin mid waliba wuxuu ku dhintay sabab duulaamad maadaama uu sabab duulaamad ku dhintay waxa la faafinayaa warar nabadgelyada khalkhal gelinaya waxaan u sheegaynaa cid kasta ay khusayso inay wax ka qabato qodobka labaad ee ah in ay dadkii istilay isor fadhiyaan maadaama dadku ay istileen in la kala raro ayaa waxa weeye lama kala rarin midna halkiisii ayaa loo daayay midna waa la raray kii halkiisii loo daayay maatadii iyo caruurtii iyo xoolihii ayuu waxyeello u geysanaya waxaan leenahay yana coraad hor leh ayay horinaysaa haddaan wax laga qaban sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan ka hadlayaa nabadgelyada qashashaada nabadgelyo la'aanta ka jirta degmada Ceelaf halka miidiya iyo meel walba waxa maraysa Saad Yunis waxa laga leeyahay nabad Saad Yunis nabad lagama laha ee weylaayeen intii dhacday ee hore waad ogtihiin mid walba markii loo keenay nabadgelyo si dhaba way u qaateen intii jeere wax dhaceenba way u qaateen iminkana waanu u taagannahay haddii aanu helayno cid nala qaadata oo macquula diyaar ayaanu u nahay laakiinse waxaan u malaynayaa inaan laba helayn cidda dadkan meesha yimina waxay u yimaadeen waa nabadgelyadu waa shay muhiim ah marka hore hadeerto dhacdadan taagan in ciidamadii qaybna la qaaday qaybna ay halkoodii ku harsan tahay waxaan rajaynayaa inay xukuumadda Soomaaliland ciidanka kalena meesha ka qaado waayo ciidan baa laga raray de labadii in markaa mid lagu daayo ma aha waa in labadaba laga wada qaadaa waayo waqti wafti iyo mas'uuliyiin ciidan qaran ka bacdi dadkii marka halkii la kala rari lahaa ayaa qolana loo daayay meeshii suurtagal ma noqonayso dawladdan waxaan leenahay mas'uuliyiinta iyo madaxda cadaaladda u dhawaada waayo waxyaabo badan baa imanaya marka waxaan leenahay nabadgelyada u timaadeen nabadgelyadii sax ah oo sideedii ku saxmayso u sax halkan waxaan kaga hadlayaa qodobada miidiyaha lagu faafiyay ee oran keenaya xumaatada shacabka iyo bulshada Soomaaliland dadku marka hore waxa weeyaan dad walaala wadada soo dhalay dad waxaan ku caayla ee wax looga qabto taala xukuumadda Soomaaliland waxa la dalkeeda madax iyada ka mas'uula madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dhibta soo noqotay in wax laga qabto oo aanay halkaas sii fidinin beelaha ciidamada isu soo adeegsanaya shirkeenaya si sinaansha oo cadaalada in dhexdhexaad looga galaaweeyaan la wada qaado la kala durkiyo waa ka gudbadana halkii wixii xala in nabadgelyadu ku imanayso qaranka Soomaaliland maanta wax shaqaaqa uma baahna horumar baan joognaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergabo